ونصيب در مدحوينيال كيني هورو إنay heerkaas u dhaqmaan oo ay shahaado shuur sameeyaan oo ay ummadii Soomaaliyeed maskaxdeeda ay qaldaan wax aad iyo aad looga xumaado waay aad iyo aadaanan xushmad iyo sharaf ugu haay odayaashaas maanta heerka aan sugay kama ayna soo bixin waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaan si gaar ah ula hadlo madaxweyne shalaytu markaad madaxweynaha ahayd waxaad awoodi kari waysay oo aad joojin waysay ayaan maanta aan rabnaa inaan joojino oo aan saxno shalay waxaad joojin waysay in dadka xaquuqdooda ay helaan in Jubbaland loo dhan yahay la dhiso waxa lagu handaday waad ogtahay new police oo 50,000 oo gaaraya oo maalin walba xadka ka soo tilaabay ee rabay inay madaxtooyada kuugu yimaadeen cabsi aad ka qabtay awgeed ayaad wax walba u ogolaatay maanta ma jirto new police liigu handadi karo godkeedii aan ugu tagnay kaliya uu sheegay madaxweyne farmaajo uu soo xariyay ay ka mid noqotay mana doonayno dawladdan dawlad ka dambeysay inuu axmedoobo kale uu isbaaraysto oo dibdib isbaar dawladnimada Soomaaliya soo dhigtay madaxweyne caleemisaarka adleeday waa ka qayb galaya waa caleemisaar dulun iyo muxuu ahaay ku dhisan ummadda Soomaaliyeedna inaad godob ka gashaa dad soo hogaamisay oo u talisay maanta inaad godob ka gashaa oo waliba tii labaad ah geeri iyo nolol rabbiga loo qabaa maalintaas xasuuqa ka baqaysay inaad iska ogolaatid ay ahayd aad dadka xaqooda la siiyo ninkii Ilaahay dilaa dhimanaya qaacidada diinta islaamka nafareys in muxuu ahaay aan xaqeena si xalaal iyo xaq aan ku raasano mudan madaxweyne axmedoobe dadkii dawladnimadaada inay socoto diidiyo ka mid ahay waad ogtahay halow jigjiga halow gaarisa wixii lagugu hayay waad ogtahay haddii aad adiga Soomaalida waxay tiraahdaa umala xasuus dhow haddii adiga ay xasuusta ka guurtay aniga xasuusta wali waa qaba waxaan ku leeyahay meesha aadina madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madoobe who is the Ahmed waa ninkii adiga oo midowgii maxkamadaha gudoomiye ka ah al-shabaab ku hoos dhisay oo gudoomiye ku xigeen ka noqday asaaqirsan saxaafadda waad fiirisaa waa ninkii inta la xiray asoo xiran xabsi aad ka soo daysay xibin baarlamaan aad siisay oo diidiyo yiri shabaabka raacay dawlad nacayb oo qaba daraadeed maanta inaad tiraahdo ninkii asaga ahaay oo dawladda federaalka iyo asaga ay ishaayaan iska wadhaaf shacabka Soomaaliyeed deegaankaas deegaan xaquuqdiisii ayaan u hiilinaya waa qiyaano qaran wallahi billahi sheekh waa qiyaano qaran saaxiibkay tahay walaalkay tahay gacantaadan leeyahay waxaan idinka codsanayaa dawladda federaalka juhdi badan ay gelisay markaan dawladda federaalka aan leeyahay isla markii waxay soo xasuusinayaan farmaajo iyo qayr anaa ka mid ah dawladda federaalka baarlamaankeedii aan nahay kuwa la ficiltamaysiinay farmaajo iyo qayr anaa shaqada u dhiibtay anaga u dhiibana baarlamaanka u dhiibtay صح madaxweyne dawladda federaalka go'aan ay qaadatay oo ah in axmedoobe oo madaxweyne ahaan xidig as madaxweyne ahaan siraar as madaxweyne ahaan in hadda iyo kadib xaq iyo xalaal wax la wada leeyo Jubbaland la dhiso ruulka ay galmudug martay in la marsiiyo maxaa diiday galmudug waa ka dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha warqad soo qortay oo muxuu ahay gobol oo nabadeeda loo dhigay waa la wada hadashii guddiga sii socday dad odayaasha la isugu yeeray maanta xildhibaanay xulnaayeen awood qaybsiga ku hashiyeen waxa diiday maxay Jubba maxay ugu dawantahay hadalka Sheekh Shariif saxaafadda uu ka sheegay waxa ka mid ahay Puntland doorasho ka dhacday dawladda federaalka inay ma ay tagin maxaa sabab ah oo Jubba loo diidaa waa su'aal fiican waxaan moodahay madaxweynahayga in intaas uu ka aragti dheeriyo madaxweyne Puntland hadda ka taliya daniya leeraada mucaarado ahay meel walba uu tagay dhinacayga waxa fadhiyay nin madaxweyne aha oo muxuu ahay uu soo sharaxay
oo xigta xataa adiga xigto markaan qabiil fiiriyo hiraabaad isku tihiin sheekh shariif waa loo diiday inuu tago deegaankiisa oo iska sharaxo ma danyaa loo diiday maxaa indhaha isiiga tireen Puntland waa qaan gaadhay 20 sano ay gaadhay sheekh shariif waxa xilka ka qaaday iiday ahayd waad ogtay garow 2 iyo garow 1 dastuurkan iska dawareegana markaad sameeynayeen dadkii kula ficiltimay way ka weyn tahay inay isqa qabsatay inay dadkeeda ay abuse garayso way ka weynaatay Puntland ayada maamulinaysa waa sax dawladda qalad meeshay ka aragtay faragelisaa qaladka ma aan arkayni danni ninka la leeyahay waad ogtiin codkaas uu guuleystay Cabdiweli Gaas iyo Faroole hal coday ku kala guuleysteen waad ogtiin ma waxa shaka gelinaysa waxaad is agdhigaysiin Puntland iyo Jubaland is agdhigaysiin wallahi Puntland waa u gafteen raal green ka bixiye Puntland waa u gafteen oo ka raal gareey Puntland waxaad ku dhigteen oo magac xumada aad saarteen aad iyo aad ayaan ugu xumahay in aad maanta isgarab dhigtiin Puntland doorashadii ka dhacday iyo tan Jubaland ka dhacday maxaa saddex madaxweyne oo isku jifi meesha dhigay oo awood ciidan isugu faanay maxaa dhigay ii sheega su'aashaas iiga jawaab maxaa ka soo ceeriyay ninkan hadda garabkayga fadhiyo soo ceeriyay oo muxuu ahaa xataa in Kismaayo jooga loogu diiday yarow maxaa soo ceeriyay oo Mareykanka ka yimid oo musharaxnimadiisa iyo caleemisaarka iyo wax walba sameeysanay way awoodeen xamar intay xamar yimaadeen ay madaxweynayaal sheegteen anaga dhaarnay iska dhaaf madaxweynaha sheeganna ceeba idin ku noqonaysaa maanta inaad dadkaas dhabarka ugu fadhiistaan degab ayaa dhabarka laga saaray xoog badan xilligii madaxweyne xasan sheekhaana laga saaray inaad maanta tiraan degabka laga iskama qaadi kartid aad idinku ku fadhiisatiin waa guul darro u soo hoyatay dadka aad matashiin iyo dadkaas soo matali jirteen aad iyo aad baan ugu xumahay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe wuxuu u shaqeeyaa haddaad moodeen midabka Soomaali aad ugu egyahay Kenya u shaqeeyaa shalay Ethiopia u shaqeynay Tigray u shaqeynay waliba Tigray maanta meeshii waa ka baxday wuxuu u shaqeeyaa maanta Uhuru Kenyatta iyo badii madaxweyne xasan sheekh oo adiga dacwadeeda badda aad geys ayuu difaacayaa oo raba Kenya inuu gacan ku siiyo waxayna Soomaaliya ay Kenya ku garaacaysa ay rabtaa Axmed Madoobe in ka dhigto idinka marka ma ushi baa taageeraysiin ushi Kenya haddaad Kenya taageeraysaan si bareer u taageer ala badda geey dacwadeeda qalad inaad ku geyso qiro saxaafadda isugu yeer haddii kale Kenya hanoo lagu qabaninaha oo Axmed Madoobe inay ugu garaacda rabtay ka leexda madaxweyneyaalka inay sharafta lahayd qiimaha badnaayatiin ka leexda shirki jiraa'idood qabanaysiin Soomaaliya waa idin fiirsanaysaa ma Axmed Madoobe doorasho keenaysaa xisbiyaalaad madax u tihiin waa Axmed oo qof ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo jubba degan kuma cod ka rabtaa adiga waxaad cod ka rabtaa shacab haddaadna cod rabin برينا أن رالك ونقول دون دورشة أحمد أو سمايو كله هذه فرماجي غير أي سمايان أن رالك ونقول دوني أنا جو هاشم مانكي قدام مسار باي لقضية إجتاجنت وقرن الله رنتي وحيده أنت قالك شيخ شريف وحور دقالك وحوك صوب باللاودي قدامي جواري وكصوب باللاودي يقول ريد تانكيس ورقدامي جواري حلوانات دورتي حلوان دي دورتي أنا حلك قاضي أنا كميدا يدك حلك قاضي أفر بلوضا موشكيس نبرك ويسار راي قدام كلام دورني ها أفلقا دينينا قدام كي كلام دورنا عيننا ها أفلقا ديننا ملحظة يناتين ملحظة دلك صوم مرتياتين بارلمان كانوا حركاس كنتي جواري قداشي ساليدي معناها قدامي مودي قدامي مرسل يدك كاسودن وحبك مجران واي معناها يعني لو قفي ملحظة إذا كبل ذي مقفي جرد ها وقفنا وقدبين وحان كسو كوبا يا هذا الكي دولة دان ما أنت جرتا ما ديار ومعها إن دولة محوها دولة قبلية ضد شاشية قلال أي ككابايين إن يدب دبو
ay lagu qabatayso oo ay dibindaabi ugu samayso dowlad Soomaaliyeed qayrana uu iska baxa farmaajina uu iska baxaya mas'uuliyiinta kale oo imaanaysa waxay rabaan juhdiga maanta la geliyay inay biri dowladeena ay ku raaxaysato halka shay oo aan ku soo gabagabaynayo waxa weeye waxaan maqlay inaad bixi rabtiin oo aad Kenya ku laaban rabtiin oo aad muxuu ahay tahriib in soo gashiin aad rabtiin oo helicopteradii Kenya ciidankii muxuu ahay Kenya inay idin soo qaadaan aad rabtiin walaalayaal oo mas'uuliyiin qaran baati sharafta dalkaad qayb ka leedihiin tahriib ha gelina sharci darrana ha u gelina tahriib ha u gelina sharci darra tahriib inaad Kenya ay idin soo qaado oo ay idinkoo dhahay dawladayna eelaboorka noo diiday diyaaradii qaadan lahayd noo diiday helicopter nagu qaad inaad tiraahdin sharaf dhac idinka weyn ma lahaanaysa arrintaas aad macsantihiin aan maqalnay taageerayaashiina aan ka soo xignay xildhibaanada oo muxuu ahay xisbiyada idinku jiro ayaan ka soo xignay walaalayaal oo ha samaynna taas aniga gacantiinaan lee walaalkiinaan nahay anigu gacantiinaan lee sharaftiinaan jeclahay ha samaynina hataa Axmed Madoobe waa la soo qabanayaa dhiigiisa Rashid Dhur iyo dhiigii suldaankii Jareer Weyne iyo ninka hadda oo meydka ay ugu tageen oo isbedel doonka ay isbitaalkan jiifo waa loo maxkamadeynaa waa huba my dream riyadayda waa maalin in loo maxkamadeeyo haddii uu cadaaladda Soomaaliya ka fakadan tan caalamkaas ka fakanayn ha gacan ha siininaha dambiilaha ha gargaarinaha madaxweyneyaalkii sharafta lahayaatiin sharaftiina dhowrto ilaashada sharaftiina yaanan dibdaba saxaafadda isiga jawaabin annaga iyo idinka anigu waxa iga go'an ilaa dadka reer Jubba ay xaqooda helaan inaana joogsanin